dufcadii ugu horeysay oo ka kooban 160 arday oo isugu jiray wiilal iyo gabdho isla markaana ka qalin jabiyay macadka Hope National Institute ee ku yaala bartamaha Boorama ayaa waxa xaflad weyn oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay ardaydaasi lagu qabtay magaaladan Boorama ee xarunta gobolka Nowdal waxaana xafladan ka soo qayb galay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Nowdal xogayaha dawladda hoose ee Boorama culimaawidiin odayaasha dhaqanka garad arday waalidiin maamulka iyo macallimiinta macadkan Hope Institute ee Boorama ku yaala madashan waxa ugu horeen ka hadlay maamulaha macadkan mudane Cabduqaadir Saleebaan Tukaale waxa uu ka waramay xilligii la aasaasay macadkan iyo heerarkii kala duwan oo soo maray macadkan National Institute waxa si loo aasaasay ama dhigada loo taagay sidii shafra loo koriyo kooxdii waxa sida loo galay ama loo kanaa kalaas waxa lagu laga bilaabay saddex bishii oo ku beegnay loo koriyo kooxdii marka dhammaanba hadda waxa runtiina ka muuqda ardaydu way ka badan tahay ilaa 100 dheeraad laakiin markii la haylay ardaydu waxay ahaayeen 5 arday oo ku bilowday waxa shaqeeyay laba galaas oo markaa ahaa English classes ahaa iyo hal galaas oo computer waxa tirada macallimiin ka howlgeli jirtay haddii saddex macallin bay hayeen kaasi isku daytay oo macallin kalaas kala gala iyo kalaas Ingiriiska dhammaan macadkan sababihii loo aasaasay hadda ku taaganahay wada xiisay ugu yahay ama bidii ku horeysay oo wixii ka soo baxay hadda arkaysan sababihii loo aasaasay dhammaan markaagan ayaa waxbarasho ee ka jira ama sida loogu baahan yahay inuu dhaqaalaha dhammaan gobolkeena goobaha ama goobaha bixiyada waxbarasho kala duwan sidoo kale xogayaha dawladda hoose ee Boorama mudane Maxamed Cabdi Xaashi Xamari iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee siyaasadeedka wadani mudane Axmed Muumin Saad oo iyaguna madashan hadallo ka jeediyay ayaa waxa ay ka sheekeeyeen faa'iidada ay waxbarashadu u leedahay waxayna ku baraarujiyeen ardaydan ka qalin jabisay macadkan inay waxbarashadooda kor u sii qaadaan gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Nowdal Professor Ahmed Cigari Raash oo gabagabadii madashan hadallo ka jeediyay ayaa waxa uu mahadceliyay maamulka macadkan Hope National Institute ee Boorama ku yaala tiigsiga uu tiigsanayo horumar uu gaarsiiyo ubaxa soo koraya waxa uu shahaadooyin guddoonsiiyay 160 arday ee ka qalin jabiyay dufcadii koowaad macadkan Hope National Institute si kastaba haatee ardaydan isugu jirtay wiilal iyo gabdho ee tiradoodu gaaraysay 160 arday waxay barteen saxaafadda luuqadaha hogaaminta iyo kombiyuutarka Cabdi Fataax Axmed Boorama